labada arda ee walaalaha ee deegaanada hoos yimaada gobolada Sanaag iyo Saraar gudidan oo ka kooban xubno ka tirsan madax dhaqameedka gobolada Murujeex Sool Sanaag iyo waxgarad kale intii aanay gudidan u ama bixin deegaanada labada arda waxay kulan xog waraysi la yeesheen waftiga ka socota xukuumadda Somaliland ee gobolka Saraar u jooga xalinta shaqadii dhawaan dhex martay labada arda gudidan oo ka shaqeyn doonta isku soo dhaweynta iyo walaaleynta labada arda soona xuli doona xubno matali doona labada arda oo ka kooban min koob iyo konton oday oo qaadi doona wacdiga nabadeed ee la filayay in dhawaan la saxeexo geesta kale waftiga oo hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa waxay kormeerkoogii labaad aqta ku soo dhigeen goobaha xooluhu ka cabaan ee deegaanada Cagaciid iyo Badweyn taasoo si nabad ah uga wada cabiyeen labada arda guusha u weyn waxa weeye mar haddii darka laga wada cabo waynu habsaanay waxa la sheegay 2500 halaad baa ka cabay halka saaka marka inagu de duhur baynu nimi laakiin baritan oo ku soo noqonayna wallahi waa ku faraxsanahay aad iyo aad wada aragtay xoolaha nimcadeeda iyo raga shaqeynaya wax loo dhigaana ma jiraan wax lagu ilaahay loogu mahadnaqo